السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan asxaabta ku xiran janalka Ilyas Daacad soo dhawaada waxaan idin kala gelinaynaa muddadii yareed oo hakadkana galay waxaan idin wadnaa muuqaalo cajiib ah oo idin bilownay muuqaano cajiib ah oo taxana ah gabadhii la magac baxday gabadhii dhool cadeynta marka soo dhawaada dhamaan waa 7 saac oo habeenimo waxa ay timid wadada tareenka waxayna fariisatay si ay u sugto tareenka لما فلان أي وحكو أركت الناق لين عيد المدك تاين وحي في الساعة وتضوذي هبين نما أما سقضي دحي وحي حريستي تليفون كيدي ويكل لابات وي فيرس مركل وأي ويدي ناقتي لما فلان وحي كأركتي هورتيدا مركي أي كأركتي هورتيدا أي يابتي وحي صوب حسد تليفون كيدي وحان أصول دعي مسيج وأي فيرس وحكو قرنا هاي وحي سويديسي قف كان يوياهي ما يسان قرنين مركل وأي فيرس وأي ويدي مركي أي ويدي لما فلان كالي وحي كأركتي لن كيدي بدح ويسكن حذي إيزو يابن أي وحي أركتي ناكتي وتاغن لن كيدي بدح وأي فيرسي وأي الله شيء وحي تري مكعاوين كرا markii ay tiri muku caawin karaan naagtii ma aysan la hadlin markii ay la hadli weyday ayay fiirsay taleefankeedii waan ku arkaa ay aragtay naagtiina si lama filaan ah way weyday dhinac walba ay fiiris waa ay weyday naagtii taleefankeeda ayay aragtay waa ay fiirisay waxayna la yaabtay qofkan uusan garanayn qofku yahay waa aniga qofka dhalka jaalaha wato waay ayaa masjid ugu soo dhacay markii ay aragtay naagtii ayaa soo istaagtay oo qoslaysa waayna ka carartay naag aan wajigeeda la fiirin karin oo cabsi leh markii ay ka agtagtay iyadoo si fiirinaysa eegaysa ay jaranjaro fuushay naagtii ayaa ka hor imaaday waxay weydiisay yaa waa adiga markii ay la yaabtay naagtii oo ku soo socotay iyadoo qoslaysa ayay wixii si dirqi ah uga baxsatay goobtii ay joogtay markii ay ka carartay markii ay dhowr daqiiqo ama daqiiqado oroday naagtii ayay istaagtay iyadoo oo daalan oo neeftuuraysa markii ay istaagtay ayay waxay iska fiirisay gadaasheeda inay qofkii daba socdo wili balse ma aysan arag si lama filaan ah ayay ku soo jeesatay oo horteeda ku aragtay naagtii oo